السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحلن جنال كمركل السود وده أدي هذا أمات سنتهين maanta waa arbaco waana 20ka bisha August 8 sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago arrimaha xadka iyo masaafurinta ayaan uga hadli doonaa muuqaalkan oo idil wasiirka amniga gudaha Christina Om oo booqatay xadka maalnimadii shalay ahayd isla markaana dhismaha darbiga laga dhisayo xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico sheegtay in Trump uu codsaday in rinji madow ah la mariyo sababtu maxay tahay iyo waliba iyadoo Trump ku amaantay todobadiisii bilood u horeysay sida uu xadka ammaan uga dhigay waan idin la wadaagayaa waxay sidoo kale Christina Om ay sheegtay in 200 maalmood ugu horeysay maamulka Trump tirada dadka iyagu si iskooda isku masaafuriyay oo 1 milyan iyo bar kor u dhaaftayna waan idin la wadaagayaa sababta ay ciidamada ICE da'da qofku uga mid noqon karo loo yareeyay maxay tahay waan idin la wadaagayaa sidoo kale iyo shirkadaha ama xabsiyada sida gaarka ah loo leeyahay shirkadaha iska leh oo sheegay in 6 bilood ay ugu horeysay sanadka faa'iido badan oo lacag faa'iido badan ay soo gashay sababtuna maxay tahay kontraktiyada ay ICE kula jiraana sidoo kale waan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada 2 gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona faahfaahintaasi dheer fadlan WhatsApp number eber 96454927 mahadsanidin ogeysiis muhiim ah madrasada xifdinta quraanka kariimka ah ee Darul Qur'an Online Academy oo hore ugu barateen waxbarasho tayeysan waxay ogeysiinaysaa dhammaan waalidiinta jecel in ubadkoodu ay ku barbaariyaan barashada quraanka kariimka ah in madrasadu ay qaadanayso fasalo cusub kuwaas oo lagu baranayo barashada quraanka kariimka ah iyo xifdintiisa barashada akhrinta iyo qoraalka carabiga barashada axaadiista saxiida salaada barashada adkaaraadka iyo ducooyinka asaasiga ah fiiro gaar ah arday kasta waxa uu helayaa muraajaco iyo subax joogto ah Darul Qur'an Online Academy waxaa sidoo kale ka faa'iideysan kara waalidiinta aan hore ugu suurtagelin barashada iyo xifdinta quraanka kariimka ah iyagoo ku baranaya qaab online ah wixii macluumaad inta dheeri ah nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda wasiirka amniga gudaha Christina Om ayaa waxay maalnimadii shalay ahayd booqatay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico gaar ahaan dhinaca New Mexico oo Trump uu bilaabay dhamaystirka darbigii qabyada ahaa ee 4 sano hore madaxweynaha qabyada uga tagay Biden intii uu jiray darbigaasi lama dhisin oo wax yar xitaa lagu madarin marka shalay ayay tagtay shir jaraa'id ayayna halkaasi ku qabatay waxaana ay sheegtay in halkaasi ay u tagtay dhamaystirka darbigaasi qabyada ah oo socda inay soo kormeerto codsiga Trump uu u jeediyay in la fuliyo iyo sidoo kale in darbigaasi lagu soo kordhiyo teknoolajiyad kale oo casri ah oo dhaqdhaqaaqa dadka sharci darrada uga soo galaya looga hortago Christina Om waxa ay tiri madaxweyne Trump waan uga mahad celinaynaa ay tiri sida uu ammaan uga dhigay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico isla markaana waxa ay sheegtay in wadan aan lahayn xuduud gabi ahaanba uusan wadan ahayn waxana ay sheegtay in madaxweynuhu uu arintaasi fahmayo sida darteedna muhiimad gaar ah uu siinayo in mustaqbalka wadankeena isagoo fiirinaya in xadka uu ammaan ka dhigo hadda eega ay tiri darbigan iga dambeeyo aad ayuu u dheer yahay sidoo kalena waa ay adag tahay in darbigan amaba suuragal ma ahan in laga soo boodo oo hoos waa loo qoday ayay tiri oo hoos si aad ayaa loogu qoday maantana waxa ay tiri rinji madow ah ayaan marinaynaa arintaasina waxa si gaar ah u codsaday madaxweyne Trump oo isagu fahmaya in xilliyada kulaylaha marka qofku dhar madow wato iyo marka dhar cad uu wato kuleylkaas waxa soo jiidan oo dharka madowga ah marka sidaa darteed maadaama gobolada xuduud ay ku yaalaan sida Texas Arizona iyo California dhamaantoodba ay kuleyl yihiin in markii rinjiga madowga ah la mariyo xilliga kulaylaha marka la gaaro ay adag tahay in qofku uu soo fuulo isla markaana dhinaca Mareykanka uu soo gudbo sidaas darteed dhamaantiiba waxaan marinaynaa ay tiri rinji madow ah si loo xaqiijiyo ay tiri in ay adkaato in dadku ay si sharci darro ah ay wadankeena ay ku soo galaan waxana ay sheegtay in qofku sharciyada federaalka dadka sharci darrada ah inay jabiyaan aysan ahayn laakiin ay u hoggaansamaan sida saxda ahna ay wadankeena ku soo galaan kadibna muwaadiniin Mareykan oo noqdaan riyadooda Mareykan
ay halkaasi kasii raacaan waxaana sidoo kale intaasi ku sheegtay hadda sharcigii Big Beautiful Bill oo madaxweyne Trump uu saxeexay 4 bishii 7 ee July in uu siiyay lacag fara badan oo lagu dhisayo darbigaasi u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico isla markaana waxay sidoo kale xaqiijisay in ay ku dadaali doonaan ma ahan xadka Mexico oo kaliya laakiin midka waqooyi ee dhinaca Canada la wadaagna ayay tiri iyo sidoo kale xuduudaha badaheena dhamaantoodba in la sugo iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana Kristen Ohm waxay tiri Today we're going to be talking about the incredible work that these individuals have done in making sure that we're continuing to construct infrastructure. And when you look at what is behind us as far as the wall that is being built, you see obviously the structure, but also there will be more added to it as far as technology, cameras, sensors that will ensure that it will be secure far into the future and that will be efficient as well with our resources and our individuals and our agents that are out here on duty day and night making sure that America is safe. Remember that a nation without borders is no nation at all. And we're so thankful that we have a president that understands that and understands that a secure border is important to our country's future. Now, if you look at the structure that's behind me, it's tall, which makes it very, very difficult to climb, almost impossible. It also goes deep into the ground, which would make it very difficult, if not impossible, to dig under. And today, we are also going to be painting it black. That is specifically at the request of the president, who understands that in the hot temperatures down here, when something is painted black, it gets even warmer, and it will make it even harder for people to climb. So we are going to be painting the entire southern border wall black to make sure that we encourage individuals to not come into our country illegally, to not break our federal laws, but that they will abide and come to our country the right way so that they can stay and have the opportunity to become United States citizens and pursue the American dream. Now, we got an incredible amount of resources allocated to us in the Big Beautiful Bill, and we're so thankful for that because that's going to allow us to continue construction. The construction right now is at the pace of a little bit less than a half a mile a day, and the border wall will look very different based on the topography and the geography of where it is built. Here you see structure. We will have waterborne infrastructure that will be put in place as well, and then that technology will be installed. And we'll utilize that to make sure that we're doing due diligence in securing every single inch of our border. And it's not just our southern border that we are concerned with and putting resources into. It is every border from our maritime seas to also our northern border to make sure that the American citizens can have safety, but also that our laws are enforced. dhinaca kale wasiirka amniga gudaha ayaa madaxweyne Trump waxay ku amaantay in todobadiisii bilood ee ugu horeysay uu xuduudda Mareykanka uu ammaan ka dhigay isla markaana uu ka dhabeeyay ballanqaadkii uu xilligii ololaha doorashada uu sameeyay isla markaana waxay xaqiijisay in ballanqaadkiisu ahaa in xadka uu ammaan ka dhigayo duulaanka dadka sharci darrada ah ee dambiilayaasha ay Mareykanka ku soo qaadeen oo maamulkii Biden uu fasaxayna gabi ahaanba uu joojinayo arrintaasina waa uu ka dhabeeyay wuxuuna dib u soo celiyay ammaankii bulshada xuduudda ku teedsan ee Mareykanka dadka Mareykanka ah ee degan wuxuuna sameeyay wixii uu ballan qaaday maantana waxay tahay xadka ugu ammaanka badan ayaan leenahay taariikhda intii Mareykanku uu jiray waxayna sidoo kale u mahad celisay ciidamada xuduudda jooga ee CBP kuwa ICE iyo waliba ciidamada kale ee deegaanada laga soo galo Mareykanka oo Mexico la wadaaga jooga dhamaantoodba way u mahad celisay iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxay tiri Trump have been in the White House and in charge of this country for 7 months. And in this first 7 months, he has accomplished some unprecedented things for the security and the safety of all American citizens. As you know, when he campaigned to get elected as President of the United States, he promised the American people that he would secure our border, that he would ensure that the invasion of the illegal criminals that were coming into our country under the Biden administration would be stopped, and that he would do all that he could to restore the safety to our American communities. And he has done exactly that. In fact, today we have the most secure U.S. border that we've ever had in the history of this nation. It's incredible the work that he has done along with the good folks out of CBP and ICE and law enforcement, federal agencies in partnership with states like Texas right here. dhinaca kale wasiirka amniga gudaha Kristen Ohm ayaa waxay sheegtay in 200 oo maalmood ugu horeysay oo xilka maamulka wasiirka amniga gudaha ay haysay in iskood ay isku masaafuriyeen
1.6 milyan oo qof. Marka waa dadka iyagu iskood isku masaafuriyey oo dowladdu aysan qasab ku masaafurin. Waxay sheegtay dadkaasi inay dhageysteen fariintoodii ahaa in qofku haddii uu waddanka iskii isaga masaafuriyo in si sharci ah uu dib ugu soo laaban karo oo loo dacwoon karo. Laakiin Maraykanka waxay yiraahdeen haddii qofka aan masaafurino uma ogolaanayno qaab sharci ah iyo qaab sharci darro ah in Maraykanka weligii noloshiisa uu dib ugu soo laabto. Waxayna sheegtay in dadku iyagoo ka faa'iideysanaya diyaaradaha ay dowladdu ka bixinayso oo wadamadooda ay ku aadayaan ee lacagta $1,000 oo bonuska la siinaya abka CBB Home ay iska diiwaangeliyeen, isla markaana sidoo kalena baaqi dowladda ay maqleen, sidaasina waddanka ay uga baxeen. Marka 1.6 milyan ama 1 milyan iyo bar ka badan haddii iskood isku masaafuriyeen, inta ay dowladdu masaafurisana 500,000 milyan ay dhan tahay, hadda 2 milyan oo qof ayaa muddo 7 bilooda Maraykanka ka baxay ayay muujinaysaa sida hadda muuqata. Waxaana ay sheegtay arrintaasi in hoos u dhac weyn laga dareemayo in adeegyadii dowladda oo dadka soo galootiga ah la siin jiray ay hoos u dhac weyn oo ka jiro, iyo shaqooyinkii dadku inay shaqooyin ay si aad u helayaan. Dhinaca kale ciidamada ICE waxaan ognahay sharcigii The Big Beautiful Bill waxaa ku jiray lacag 170 bilyan ah oo loogu talagalay in arrimaha xadka oo kaliya wax looga qabto. 76.5 bilyan oo kamid ah ICE ayaa loogu talagalay. ICE hadda waxa ay sheegtay in 45 bilyan ay ku dhisayso xerooyin dadka sharci darrada ah la geeyo ka hor inta loo diyaarinayo oo la masaafuriyo. waxaana xeryahaasi mid kamid ah laga dhisay Florida oo Alligator Alcatraz loo bixiyay sida doctor. Hadda waxa uu sheegay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis in xero kale oo iyadana loogu magac daray Depot iyadana hadda la dhisayo. wasiirka amniga gudaha waxay sheegtay in xero kale gobolkan Indiana gaar ahaan magaalada Indianapolis aan ku noolahay laga dhisi doono Speedway Slammer loo bixiyay. mid kalena waxa laga dhisayaa 2 kale Nebraska iyo waliba magaalada El Paso ee gobolka Texasna iyadana mid kale ayaa laga dhisaya. Marka waxa ay ciidamada ICE ay sheegeen in 6,000 oo askari oo kaliya loogu talagalay in dadka waddanka sharci darrada ku jooga ay soo helaan, soo xiraan, kadibna la masaafuriyo. ciidamada ICE waxay sidoo kale da'da qofka ciidamada ICE ka tirsan lagu shaqaalaysiin karo ICE uga mid noqon karo markii waxay ahayd qofka ugu yar da'diisu inay 21 tahay, qofka ugu weyna inaysan ka yaraanin da'doodu 37 ilaa 40 sano. laakiin hadda da'dii dhan meesha waa laga saaray, xitaa 18 jir haddii tahay ICE waa soo codsan kartaa. waxaana wasiirka amniga gudaha ay sheegtay in 80,000 oo qof ay soo codsadeen, laakiin 10,000 oo kaliya ayay u baahnaayeen. weliba $50,000 oo bonus ayaa la siinayo qofkii applicationka soo buuxsada oo doonaya inuu ICE ka mid noqdo. lacagtaasi markay maqlaan Soomaali fara badan inay codsadaan oo ICE ay ka mid noqdaan ayaanba ka baqaya. marka hadda 18 haddii da'daadu tahay ICE waa ka mid noqon kartaa. waxaana sidoo kalena hadda meesha laga saaray da inaysanba jirinba oo da kasto 18 haddii aad tahay qaangaar ayaad u dhigantaa, macnaha waa ka mid noqon kartaa ciidamada ICE. dhinaca kale ugu dambeyntii shirkadaha xabsiyada gaarka ah iskale oo ICE ay contractiga kula jirta ayaa waxay sheegeen in 6dii bilood ee ugu horeysay ay faa'iido badan heleen, gaar ahaan 3dii bilood ee laga soo bilaabo April, May iyo June. 3daasi bilood waxa ay heleen labada shirkadood oo la kala yiraahdo GA Group iyo Core Civic si ay dalabaadka ciidamada ICE dadka ay soo qabtaan xabsiyadooda maadaama lagu xiro in lacag fara badan dowladda ay ka helayeen. sidaa darteed waxa shirkadda sida gaarka xabsiyada gaarka iskale oo la yiraahdo Core Civic waxay sheegtay in 538.2 milyan oo dollar ay heleen 6dii bilood ee sanadkan labaad. marka laga soo tago January, February, March, April, May iyo June inay heleen lacag gaaraysa 538.2 milyan. waxaana sare ay u kacday marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay 9.8 ayay kor u kacday 2024 marka la barbar dhigo. GA Group iyaguna 6dii bilood ee sanadkan qaybtii labaad oo second quarter waxay heleen 636.2 milyan ayay heleen 5% ayayna sare u kaceen marka la barbar dhigo sanadkii 2024. ICE waxay contractiye kula jirtaa in xabsiyadaasi sida gaarka ah loo leeyahay. hadda sidoo kale mid kuwa qaarkood 15,000 oo sariirood halkii markii hore ahaan jireen 20,000 ayay gaarsiiyeen. muddo 20 sano ayaa ICE contractiye ay kula jirtay shirkadahan sida gaarka xabsiyada u leh. waxayna sheegayaan marka hadda maamulka Trump markii uu yimid kadib in faa'iido badan oo lacag ay soo gashay maadaama dad fara badan loo keenayo xabsiyadoodana lagu xirayo. qof kasta oo xabsigooda lagu xirayana lacag ayay ka qaadanayaan. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.